السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. caruure kusoo dhawaada taxanaha falimaha Ramadaanka oo ay idinla socodsiinayaan ardayda xanaanada carruurta ee Imaan. Caruure waxaa idin soo jeedin doona anigoo ah Sagal Liibaan. Caruure taxanaha ku baran doona soonka bisha Ramadaan iyo waajib ku yahay iyo waajib ku ahayn soonka iyo waxyaabaha uu ku furmo soo dhawaada. Caruure soonka bisha Ramadaan wuxuu waajib ku yahay qof kasta oo muslim ah, qaangaar ah, muqiim ah, yacni aan musaafir ahayn, qaadir ah oo aan xanuunsan oo awoodo inuu soomo. Caruure maxaa jabiya soonka? Soonka waxaa jabiya ama uu ku furmayaa arrimaha soo socda. Nambar 1, cunida iyo cabida. Nambar 2, in matag kaaga keeno. Nambar 3, shahaawooyin kaaga keeno. Nambar 4, in dumarka uu ku dhaco dhiigga xaydka iyo dhiigga dhalmada xilligeeda uu ku dhaco hooyooyinka ee loo yaqaano nifaas. Caruure qofka sooman hadduu is ilaawo oo uu cuno ama cabo soonka ma ka jabayaa mise maya? Caruure ma ka furmay soonka oo waa uu sii wadanayaa oo soonkiisana waa uu jiraa, maxaa yeelay Alle ayaa quudiyay oo waraabiyay sidaa ku sugnaatay sunnada. Caruure qofkii laakiin iskaga fura isaga oo og maalin Ramadaan caba ama cuna mise waxa afurin karaa kaas u sameeyay soonka waa ka furmay, dambi weyna waa galay, waxaana ku waajibay inuu soo qadeeyo maalinkaas sida ayaa ku sugnaatay kutubada shareecada. Caruure taxanaha halkaas ayuu noogu egyahay. Soo qaad wanaagsan.